waa guul la mahadin doono haddii Somaliland xal u hesho in doorashooyinku waqtigoodu ay ku dhacaan waana qalankii Yuusuf Maxamed Ismaaciil tan iyo markii Somaliland u diga rogotay hanaanka dimuqraadiga ah iyo doorashooyinka ku dhisan qof iyo codkii oo tii koowaad ee golayaasha deegaanku ay dalka ka qabsoontay sanadkii 2002 ilaa laga soo gaaro doorashadii u dambeysay ee madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee sanadkii tagay ee 2024 ka dhacday waxay khilaafaysay markasta qodob dastuuri ah kaasoo lagu jaangooyay in cimriga golayaasha qaranku uu yahay 5 sano waxaan shaki ku jirin in dhammaanba golayaashii deegaan wakiilo iyo madaxtooyo ee lagu doortay doorashooyinkaasi marka laga reebo kuwa hadda jooga ay qaateen muddo ka badan intii sharcigu jideeyey tusaale ahaan golihii deegaan ee u horreeyay ee ka soo baxay doorashadii 2002 waxay xilhayntoodu ku eekaan lahayd 2007 hase yeeshee duruufo dhacay darteed waxay kuraasta baneeyeen 2012 iyagoo sidaasi ku qaatay 2 muddo xileed sidoo kale doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday 2003 waxay xilhaynta xukuumaddii lagu doortay ku eekeen 2008 hase yeeshee waxay talada ka degtay 2010 waxaana dheeri ku noqday muddadii la doortay 2 sano geesta kale golihii u horreeyay ee wakiilada ee la soo doortay 2005 oo xilhayntiisu ku ekeyd 2010 ayaa kuraasta sii fadhiyey ilaa laga soo gaadhay 2021 iyagoo baarka ka jaray 3 muddo xileed iyo sanad isugoyntooduna noqonayso 16 sano geesta kale doorashooyinkii madaxtooyo ee dalka ka qabsoomay 2010 iyo 2017 mid kastaaba waxaa saa'id ku ahaa cimrigii la doortay 2 sano oo ku timid kororsiimo dhiigbax ku ah hanaanka dimuqraadiyadeed ee aynu qaran ahaan waafaqnay hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo muddo dheer soo ahaa hogaamiye mucaarid ayaa si adag uga soo horjeedi jiray dhaqanka kororsiimada ee loo sameeyo golayaasha qaranka kadib markii ay dhici waayeen doorashadoodu mudane Cirro markii uu ku jiray ololihii doorashada madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee dalka ka qabsoomay 2024 waxa uu shacabka si cad ugu ballan qaaday in haddii loo doorto hogaaminta qaranka aanay jiri doonin wax muddo kordhin ah oo loo sameeyo golayaasha qaranka oo xukuumaddiisu ku jirto isagoo hoosta ka xariiqay inuu ka howlgalayo sidii uu doorashooyinka xilligoodu ugu qaban lahaa mudane Cabdiraxmaan Cirro ayaa mar kale ku celiyay in aanu gorgortan ka geli doonin qabsoomadda doorashooyinka isagoo cadeeyay in muddo xileedkii shacabku ay isagu doorteen maalin iyo saacad toona la igu dooran doonin marka ay dhammaato ama lagu dari doonin marka ay dhammaato waxaanay tani la macno tahay siday madaxweynaha uga go'an tahay in doorashooyinka isku sidkan ee deegaanka iyo wakiilada oo ku aastaysan 31 bisha May ee sanadka soo socda ee 2026 uu waqtigeedu ku qaban doono tan iyo markii madaxweynuhu mowqifkiisa ummadda u qadimay waxay dadweynuhu khaasatan kuwa hungurigu ka hayo inay ka calaf qaadaan doorashooyinka ay baraha bulshada si xiriir ah ugu wadaagaan fariimo muujinaya sida ay uga qayb qaadanayaan doorashada deegaanka iyo wakiilada ee sanadka dambe dhici doonta daneeyaal badan ayaa muujiyay sida ay uga go'an tahay inay ku tartamaan doorashada isku sidkan isku soo wada duubo waxaan nabar ku ahayd hanaanka doorashooyinka Somaliland muddo kororsiimo loo sameeyo golayaasha qaranka sidaas darteed haddii uu fulo balaqaadka madaxweynaha isla markaana la baaqsado in dib u dhac dambe uu ku yimaado doorashooyinkeena waxay qayb ka noqon doontaa dhaxalka wanaagsan iyo taariikhda hogaamineed ee lagu xasuusan doono madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro isla markaana uu sidaasi ku noqon doono hogaamiyihii soo afjaray nidaamka kororsiimo ee golayaasha qaranka